dhawaad 20 suxufi oo ka howlgala idaacadaha raadiyo Kismaayo, raadiyo Koonfur Galbeed iyo raadiyo Muqdisho oo qaatay tababar aqoontooda xirfadeed sare loogu qaadayo ayaa maanta la soo gabagabeeyay tababarkaasi. Tababarkan oo socday muddo 4 maalmood ah. Xiritaanka kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Aadan Isaaq, wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen Maxamed. Naarkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah saxafiyiintii ka faa'iideysatay seminaarkan ayaa ka warbixiyay waxyaalihii ay ku barteen. runtii tababarkan oo ahaa mid wax badan aan ka faa'iidnay. waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka hore dhammaan intii soo qaban qaabisay in seminaarkan uu noo bilaabmo. sidoo ka socday radio Kismaayo codka Jubbaland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in uu noo soo gabagaboway tababar muddo 4 maalmood ay nagu socday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. tababarkaasi oo ahaa mid 3 waji kala leh ama 3 heer kala leh oo runtii kan ugu horeeyay lagu qabtay magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. midka labaadna lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta iyaduna ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. kanna uu ahaa midkii ugu dambeeyay ee lagu soo xireeyay wasaaradda warfaafinta ee dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka ee Soomaaliya. tababarkan muddadii uu soo socday wax badan ayaan ka faa'iidnay. waxyaabihii aan ka faa'iidnay intii uu socday tababarkan waxaa ka mid ahaa maamulka iyo maareynta sida loo maareeyo qalabka agabka warbaahinta sida loo maareeyo dhaqaalaha warbaahinta waxyaabo badan ayaan tababarkan ka faa'iidnay. wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Injineer Cabdi Xuseen Maxamed ayaa sheegay in laga wada shaqeeyo sidii xogta ay u wadaagi lahaayeen raadiyaasha dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. gudbinta maxaa la yiraahdaa ogeysiyada iyo maasajada iyo loo ogeysiinayo waa very important. meelo badan oo nabadgelyo xumo ka jirta aanan warbaahinna ka jirin qaybahaasi in laga wada shaqeeyo oo programyada iyo fikradaha iyo la isweydaarsado aad bay muhiim u tahay. waxaana filayaa inay tahay wax inoo soo kordhay oo aad u fiican faa'iido badanna tari doonta dhinacyo badan, dhinaca developmentiga, dhaqaalaha, security-ga, waxyaabo badan inay ka tari doonto. marka waxaan leeyahay waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. mar labaad waan u mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan. ugu dambeyn waxaa soo xiray seminaarka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Aadan Isaaq. in training-nadan iyo casharada noocan aad kororsataan waxay idin sii daadejinaysaa ama idin sii dhaweynaysaa dunida horumartay ee miidiyaha iyo qaabka loo adeegsado taqaan oo maanta aad kala qayb qaadan kartaan. ciddii soo agaasintay dhammaan inta ka qayb qaadatay mar labaad iyo mar saddexaad oo mahadnaqaya. waan rajaynaa wixii aad halkan ku barateen inaad ula noqon doontaan walaalihii aanan u soo tagalin fursadda aysan u saamixin ee deegaanadii aad ka kala timaadeen aad dib ula noqon doontaan at least iyagoo qoraal aad siin doontaan ay wax ka kororsan doonaan. Cabdullaahi Maxamed, Jubbaland TV, Muqdisho.